Taliyaha ciidamada lugta Soomaaliyeed General Cabbaas Amiin Cali oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa halkaas waxa uu ka bilaabay abaabul dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Taliyaha ayaa waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Baydhabo, isaga oo kala hadlay sidii loo bilaabi lahaa dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Taliyaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saraakiisha uu la kulmay uu kala hadlay xaaladda ciidamada ay ku sugan yihiin iyo sidii loo abuuri lahaa iskaashi wada shaqeyneed ee dhex marta ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan taliska ciidanka xoogga dalka ay ka go'an tahay sugidda amniga guud ee dalka iyo dardargelinta howlaha ka dhanka ah la dagaalanka Al-Shabaab. Hadalka taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed General Cabbaas Amiin Cali ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan Al-Shabaab weerar ka geysteen saldhigyada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Daynuunay ee duleedka magaalada Baydhabo.